kii hore wuxuu ahaa sidaynu horeba isugu aragnay ama u soo duubteen degmada Salaxle galbeedkeeda kanina waa qool caday deegaanka qool caday ayuu ka sameeyay oo ka asaasan yahay Sidiiq Maxamed Xasan waxa uu kamid yahay dhalinyarada ku howlan beeraha iyo kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo sidii looga maarmi lahaa khudaarta dalka loo soo dhoofinayo waxa uu maalkiisa maskaxdiisa iyo muruqiisa geliyay dhinaca wax soo saarka beeraha isagoo deegaanka qool caday ee degmada Salaxle ka hirgeliyay beertiisii labaad oo uu ku beeray dhul aan horey looga aqoon dhinaca wax soo saarka beeraha amaba ah deegaan oomana balse sida uu sheegay dhulkan ciidiisu ay hodan ku tahay isla markaana ay ku wanaagsan tahay dhinaca wax soo saarka waxaan anigu aaminsanahay Sidiiq ahaan inaga wadankeena waxaynu haysanaa ciid hodana iyo cimilo cadceed ku hodana labada shay saddex shay buu geedka khudaartii u baahan yahay ama khudaar dhamaanteed saddex shay u baahan tahay waxay u baahan tahay hawo iyo cadceed iyo biyo saddexdaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala qani buu inaga dhigay saddexdaba Itoobiya inaga kaga fiican waxa uu sheegay inuu ka faa'iideysto dhibaca roobka iyo raxada ee bashubo waxana uu Sidiiq beertan uu ku beeray khudaar aad u kala duwan isaga oo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan barnaamijka beeraha u sheegay in 16,000 oo geed oo barbarooni ah uu ku beeray isla markaana uu iib geeyo halkan waxa ku beeran walaal barbarooniga ku beeran ee sida uu noogu muuqda waxa weeyaan qiyaastii 16,000 oo geed baan ugu tala galay markii hore marka laga yaabaa inay waxaan naf lahayn ka dhinteen marka 16,000 oo geed weeye walaal beeray barbarooni waan beeray basal waan beeray tamaandho waan beeray khiyaar waan beeray shamaan baan beeray xabxab baan beeray يعني هي خضرة قيب بدن أو كمية وان بيري مرة وحن إيبجي أنت أو كلا دون لكن مشاكلات كوجو بدن يا عقبات كوجو بدن هضبة تشربان هي كل بنا حديدة أو نحرة كقواس مركان إن شاء الله وحن نشعل المستقبل كجود مننا إنه وحكست أو ودن كنا لو جبه إن شاء الله بالله الكريم أنو كبرنا بيرت Sidiiq Maxamed Xasan waxa kale oo tilmaamay in dhulkeenu hodan ku yahay dhinaca wax soo saarka beeraha loona baahan yahay in laga faa'iideysto Toobiyada inoo keento khudaarta inaga kaga wanaagsan anigu waxaan aaminsanahay maanta cadceed weyn haysanaa waa bilaash hawadiina weyn haysanaa Ilaahay weyn siiyo bilaash wadan 12 bilood wax laga soo saari karana inaga ayaa jirna adduunyada gabigeeda marka hadii biyo la'aan baa wadankeena jirta haddii balliyo dhaamam la xiro oo kaymaka aynu wax ku waraabinayna aynu duubi doona ama sawiri doona oo kala loo sameeyo beeraha dadka maanta wax beeraa way badan yihiin waxaan aaminsanahay 100% inaynaan u baahnayn hal baradha oo wadanka dibadiisa inooga soo gasho ugu dambeyntii Sidiiq Maxamed waxa uu xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ka codsaday in dalka laga joojiyo khudaarta qoyaanka ah ee dalalka jaarka ah laga soo dhoofinayo isagoo xusay in beeraleyda reer Soomaaliland ay ku filan yihiin isla markaana ay tacab xoogan geliyeen khudaartaasi sadarteed dad badan oo reer Soomaaliland oo qoyaanka beeri jiray oo kaash korobka yar quudan jiray imaka in la rabo in Itoobiya suuqa ka saarto marka waxa wasaaradda beeraha runtii halkan uga faa'iideysan lahaa cod soo diri lahaa wixii qoyaana ee Soomaaliland ay lahayd sida gaarka ah u lahayd khudaarta aan kaydka gelin iyada Soomaaliland beeran jirtay salaada hore la qaadaa suuqadeena la geeyaa inaan Itoobiya laga ogolaanin qaci iyo barbarooni iyo salad iyo kamasar inay inoo soo dhoofaan inagana waa inagu ceeb anagana waa nagu arax jab iyo niyad jab waxaan ku qasbanaanayna inaan maadaama kaash korobki meesha uu ka baxo Itoobiya keenayso anagu inaan faraha ka qaadnay noqonaysaa taana codsigasan insha Allah aad iyo aad u maas Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa